xiriirka Soomaaliya iyo Kenya way ku khasban yihiin in ay wada shaqeeyaan, in ay xiriir fiican yeeshaan, inay is-ixtiraamaan, dadku ay wax wada qabsadaan. weligoodba way wada noolaayeen, way wada noolaan doonaan. waxa aan nahay dad ma garanaysaa ee wax wada qabsada, wada dhashay, khilaafna uu yimaadaa uuna baxaa, laakiin dadku ma guurayo, dalku ma guurayo. dhowaan guddi igaad oo u badan xubno reer Jabuuti ah oo xaqiiq raadin ku sameeyay eedeymaha Soomaaliya ee ka dhanka waddanka Kenya waxay sheegeen in aanay wax xaqiiq ah u haynin cabashada Soomaaliya ee ka dhanka waddanka Kenya, taasi oo dowladda federaalku ay ka carootay. dadka qaar ay aaminsan yihiin in Soomaaliya oo xiriir wanaagsan la sameeyay waddanka Eritrea oo idinku is haysaan ay tahay waxaad ka careysan tihiin. war Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxay karta ay ma jirto hortaba. tawaaris talabaadna dalab uu dalbaday madaxweynaha Soomaaliya shir madaxeedkii igad ayay hawshani ka timiday. war idinka ugu dhow bal soo eega waxaan korkii la yiri war iska diidi kari lahaynoo waxaan oran lahayn cid kale u dirto anaga naday, laakiin kalgacal baan u nidhisada. waxa aan soo aragnayna iyo wixii aan qornayna ragga Soomaaliyeed may akhriyin runta dadka mana garanayaan wixii ku dhex jiray meeshaas. shir madaxeed baa lala sugayaa oo arrinka lagu faaqidi doonaana way ku qorantahay. waxa dee yani loo buunbuuniyey ee loo qayliyey ee loo kanayay anagu ma garanayno. waanan iska diiday inaan idhaahdo walaa jawaab walaa waxba midna inaan la siin, maxaa yeelay dabka haddii lasii huriyo dhibaato unbuu keenaya. wax weyn maaha, arrinkaasina wuu iska dhammaanaya haddii alla yidhaahdo. markii shanaad ayaad madaxweyne musharax u tahay xilkaad imika haysa ee madaxweynaha waddanka Jabuuti adigoo 22 sano soo hay xilkaasi. marka maxaad ka qabatay dhibaatooyinka waddankaasi ugu horeysay shaqo la'aanta, maxayse tahay sababta marka aad u doonaysay inaad xilkan sii hayso? anigu ma doonayo dadka ay u qasbayaan runtii haddaan sheego oo dadweynaha ayaantii dhawd aanoonan weli hadlinba. dadweynuhu weliba dhalintu ay tidhi joog dhaqaaqina igu tidhi baan iyaan u soo dhigtay inaan mar ugu dambeyn haddii alla yidhaahdo aan samayno inaan sii joogo oo shaqada wixii yani qabiyo naga ah aan sii dhamayn. mansab jacayl iyo madaxweynenimo wax danahoo gaarahoo aan ka doonayay ma jiro. waan gaboobay, shaqaduna dhalintay ku wanaagsan tahay. wixii barnaamij noo socdana dee iminka interviewgaaga yaree rubc saacaha miyaan ku dhamayn kari de hawshu way badan tahay. barnaamijyo aada u fara badan baa noo qabsoomay, haddana kuwa aan ku dhex jirnayna kaba sii weyn. warbixin sanadkii la soo dhaafay Bangiga Horumarinta Afrika uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dadka shaqalaanta ee dalka Jabuuti ay gaarayaan 39.4%, iyadoo weliba aynu ognahay in shacabka dalkaasi ay yihiin wax ka yar 1 milyan. marka shaqalaanta marka madaxweyne 22 sanaad xilka haysay wax kaga qaban weyday iyo aad doonaysay inaad 5 sano dambe wax kaga qabato, maxay tahay? halkeed ka timaadeen maad tiraahday horta shaqalaantu waxa weeyaan wax jira laakiin sida loo dhigayo ma aha. shaqadu dawladdu uuna shaqo ma qaban. dawladdu waxay samaysaa soo dhaweyn iyo bogaadin iyo magaranaysaa tirtirsiiso maalgelishayaasha ama gudaha ama dibadda. wixii anagu aan qabanayna 60 iyo 70 iyo baan ka nimidnay oo 20 ma joogno iminka haddii alla yidhaahdo. warqadda ugu dambaysa ee soo qoreen World Bank-na haddaad akhrisatay mooyaan nalku waxa weeyaan cagaar. dalka Jabuuti doorasho ayaa ku soo foolay bil kadib, waxaana sanadkii 2014 jiray heshiis idinka iyo mucaaradkaad wada gaadheen oo dhigayay in dhinacyada siyaasadda isla soo dhisaan guddi doorasho ka madax bannaan wasaaradda arrimaha gudaha. mucaaradku waxay ku andacoonayaan in heshiiskaasi uu dhanka dawladda ka socon waayay. maxay tahay sababtu? waan ku daalnay raggaas. anagu sida loo sameeyo 49 markaad ka soo bilowdo ilaa maanta doorasho uma ku jirna. waxa aan yani wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka shaqeysa waxaasi. guddi madax banaani uu jira uuna jiri doona uuna jiri jiray. heshiis dadkaasi aad sheegayso aan la samaynayna ku anagu aan ka baxna maahina ayaga unbaa ka baxa mar walba. kolka ay arkayaan inaanay u suuroobaynin inay wax helaan ayay durmaan qaataan oo ay meel walba ka qayliyaan. kolka meedaanka kaala la yidhaahdana etimada lama arko oo tayo leh. dharaarta ay doorasho imanayso bay yidhahdeen waxaan nahay xisbiyo, waxaan nahay mucaarad oo sidaas waxba laguma helo. sida ay sheegeen hay'adaha xuquuqda aadanaha, dawladdu waxa la sheegaa inaysan wax dulqaada u haynin dadka dhaliila siyaasadda oo haatan dadka idin xiran waxa kamid ah Fuad Yusuf. siyaasiyiintii mucaaradka ugu tunka weynaan waddanka waa bay ka carareen. marka doorashada xalaasha ah ayaa doonaysa in dalka Jabuuti ka dhacdo, maxay tahay? dhageyso waxaad aragtay dad bilaa cabasho miyaad aragtay?
qoys qurahaatay haddaad dhex joogsato waad helaysaa qof cabanaya dee qof cabanaya waddanka looma joojiyo kow talabaadna qof dembi galay ha inaanan la xidhin meesha ay ka timid ma garanayaan daraarta uu nin dambiila noqdo ayuu siyaasi noqda weligii isagoon siyaasadna arkin caskari ah shaqaysta daraarta uu isagu dembi uu doontay uu sameeyo uu dalka khiyaameeyo uu xoolihii dawladda jejebiyo oo uu dad laayo ayaa lagu oranayaa wuxuu yahay siyaasi ee soo daaya ma noqonaysa dee sida cadaalad baa jirta halkaa baa la geen garsoorku waxa uu ciqaabo isagaa leh annagu malihi laakiin doorashadii 2016 ka dhacday waddanka Djibouti mucaaradka ugu weyn kama aanay qayb gelin sida ay ku sheegeen warbixin xilligaasi ay soo saareen midowga Afrika IGAD iyo jaamacadda Carabta doorashadaasi ma aysan ahayn mid sidii la rabay u dhacday marka waxa doonaysaan sootii un maahan anagu heedhe dadka mucaaradkii kol hadduu diido inuu yimaado meesha annagu ma nihin kuwii ka daba tegaya ee u yeedhanayay ma nihin hadday yimaadaanna way imanayaan waa la wada arkayaayo ninkii doonaya ay dani ka hayso inuu yimaado oo uu yacni kormeer ku sameeyo doorashadu siday u dhaxayso ha iska yimaado ma diidayna annagu gudo iyo dabadba laakiin madaxweyne ururadii korjoogteynaya doorashadii hore waxay sheegeen inaysan doorasho sax ka dhicin waddanka Djibouti iyaa kaa yidhi sida warbixin ay soo saareen baanu aragnay iminka soo kaxeeyo iyagoo wada joogo oo shaqaynaya aad arki doontaa warkaas adiga ma kaa maqlaya wallahi mucaaradka reer Djibouti siyaasadda kula lahaa laakiin maayo mucaarad mihi reer Djibouti mihi laakiin madaxweyne waxay leeyihiin guddiga doorashada wuxuu hoos tagaa wasaaradda arrimaha gudaha marka sidaas hal laakiin madaxweyne guddi doorasho ka madax bannaan dawladda markaa jirta la arki jiray maxay tahay guddi doorasho oo hoos tagay wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkeeda adigu aad magacaabayso ma sidaa maaha guddiguna waa gooni shaqaynta iyo ururinta iyo natiijooyinkaba wasaaradda arrimaha gudaha iyaa leh kuur constitutionaalka la yidhahda ee dastuuriguna inuu sheego iyuu leeyahay kolka uu kormeero soo wada eego si kastiba waan u samaynaa waan naqaanaa iminka wadannada la doonayo in la burburiyo ayaa looga sheekeeyaa sheekooyinkaasoo afrikada galbeedka adiga arkay waxaa dadku ku samaynayaan ma garanaysaa daraar walba doorashadii lagu noqonayo ee laislaynayo waxaabaa doonaysa waddanka inaa loo keeno guddiga qaran ee doorashooyinka baa la yidhaahdaa way ku jiraan waxalla wixii xisbiga waddanka jiraayay wakiillay ku leeyihin laakiin wasaaradda arrimaha guduhuna shaqo kale iska leedahay qoladan dastuuriga la yidhaahdina shaqo kale iska leedahay saddexdaa shaqo oo isku biirtay ayay doorashadu ku dhacdaa ugu dambeyntii markii madaxweyne sanadkii 2011 waxaad sheegtay inaadan mar kale u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalka Djibouti inkastoo wixii ka dambeeyay aad u tartantay haddana aad u hanqaltaagayso dalka Djiboutina waxa toddobaadyada la soo dhaafay ka dhacay dibadbaxyo dadku ay ku dalbanayaan inaadan mar kale soo sharaxin goorma dadka kale fursad siinaysaa ay maadiyada doorashada qayb galaan ma kaliday baan dhigtaa anigu doorashada kaliday anigu ma dhigto ninkii imanaya in madaxku waa u furan yahay 5 ha noqdaan 10 ha noqdaan cid u diidi kartaa ma jirto meesha